xirada Maryama oo ku taala duleedka degmada Carta oo qiyaastii 40 kiiloomitir u jirta caasimada dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay tababaro kala duwan oo u furmay ciidamada kala duwan ee waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti waxaana tababarkaasi oo ka dhacay xiradaasi isugu yimid madax badan oo uu horkacayo wasiirka gaashaandhigga ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil wasiirka isboortiska Jaamac Cilmi Cokiye taliyaha ciidamada gaashaandhigga ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti iyo weliba taliyayaal kala duwan oo ka socday ciidamada waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti ciidamada oo ku dilabisnaa direyska qaybaha kala duwan ay wataan ayaa goobtaasi waxay ku soo bandhigeen dhoolatus ballaaran oo ay ku muujinayaan sida ay diyaar ugu yihiin difaaca dalkooda wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa uu salaan ka qaatay ciidamadaasi isagoo oo mid u gacan qaaday madaxdii kala duwaneed ee ciidamada ee goobtaasi maanta ku sugnaa waxaana ciidamada oo si qurux badan goobtaasi safaf dhaadheer ugu jiray kadib uu wasiirku halkaasi ku soo maray waxaa sidoo kale goobtaasi lagu arkayay ciidamo iyaguna qayb ka ah ciidamada ilaalada xuduudaha kuwa kale ee militariga ee iyagu daafaca dalka waxaa sidoo kale ciidamadaasi ka mid ahaa ciidamada jandarmaariga ciidamada booliiska iyo weliba qaybo kale oo ciidamada ka tirsan taliyaha gaashaandhigga ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti Generaal Sakariya Sheekh Ibraahim oo goobtaasi ka hadlay ayaa isagu waxa uu sheegay ujeedada munaasabadani ay ciidamadu maanta u qabteen ku maqan yihiin raggeennii iyo geesiyadeennii qalabkeennii ku maqan yahay inay haddana dawladdu siyaasaddeeda gashay oy tidhi waxaan ku horraynaynaa inta dhulkaasaas ka maqnaado dawladda tan aan jaarka nahay ee Soomaaliyeed ee caalamkii u soo gurmaday ama dadkii reejoonka u soo gurmaday ama gurmadkoogii lagu daayay Afrika Jabuutina tii ugu horraysay oo 19 ilaa maanta laga bilaabo ay Jabuuti saa u sare u haysay maantana Ilaahay soo gaarsiiyey inay qarannimadii Soomaaliyeed ay dhisanto oo adduunyada aqoonsi buuxo ay keenay caalamkiina u soo jeestay siduu u gargaarayay ayaa Jabuutina la yidhi Jabuuti danteeda waxaan ka qayb galaynaa oo aan horta dejinaynaa midnimada Soomaaliya iyo nabadgelyada dejinaynaa teeniyada lama iloobin sidaan u soo baxnay haddaba ujeedadeedu waa sida dhoolatus weeye muruqtus weeye inaad wax barataan raganimo la timaadaan aad wada shaqaysaan aad ilowdaan danaha gaarka ilowdaan ku ilowdaan waxa waddanka la idinku dhiibay idinka gacanta layna gariday waa midnimada weeye waxaa sidoo kale isna goobtaasi ka hadlay wasiirka gaashaandhigga ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil waxa uuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay munaasabadani in ciidamadu ay iyagu isku diyaariyaan hanaanka isdhexgal iyo weliba horumarinta dhinaca howlahooda militari waxaa sidoo kale aanu ku soo wareegnay qaybo ka mid ah qaybaha ay ciidamadaasu degan yihiin iyada oo qaybo kala duwan oo ilaa 5 qaybood gaarayana ay ka mid tahay dugsiga Xasan Guuleed oo isagoo ah dugsiga tababarka ciidamada waxaana goobtaasi dugsiga ku yaala oo ahaa dugsigii hore looga soo raray deegaanka Hol Mikael Cabdirashiid Bare telefishinka qaranka Soomaaliyeed Jabuuti